السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والدين تقالي واني ودا السلامي الحمد لله سنة كان ميلادي كوي لباتن إلهي خير نوغو بلابي إن كستو سنة كان هجريقة بشي شناد باب مرينا ولله الحمد والفضل رون أهانتي تربية عرورتي كوبعين تقويسك ومشروع آد u dheer oo project aad u dheer waayo oo waqti badan iyo juhdi badan iyo mintid badan u baahan marka su'aasha raba caawi inaan weydiiyo waalid kasta ama aaba ahaaw ama hooyo ahaaw maxay tahay qorshahaada oo guud oo ku saabsan ilmahaada what's your parenting vision ilmahaada yar maanta oo 2 bilood laga yaabo inuu 2 bilood jiro ama 5 sano jiro ama 10 sano jiro markuu bari weynaado oo qof 25 sano jiro noqdo maxaa rabtaa inuu akhlaaqdiisa ahaato sidee baa rabtaa inuu diintiisa inuu ku ahaado sidee baa rabtaa luqadiisa hooyo iyo dhaqankiisa Soomaaliyeed inuu ku noqdo especially ilmaha qurbada ku dhashay marka waxaa muhiim ah inaa qorsho iyo aragti dheer inaa ka lahaano tarbiyada ilmaheena ما waxaa jirta dhahaysa safarka kunka tilaabo ah hal tilaabay ka bilaabataa marka sanadkan tilaabada rabtid inaad gaarto maxay tahay waxyaalaha rabtid inaad baratid xagga tarbiyada ilmaha maxay tahay waxyaalaha rabtid inaad ku hormartid maxay tahay dhaqaniyada cusub aad rabtid inaad la qabsatid maxay tahay dhaqaniyada hore aad rabtid inaad iska daysid aad bay muhiim u tahay inaad hadaf lahaatid especially hadafkaasna inuu kuu cayimnaado oo waadax kuu noqdo aad meel ku qoratid khasab maaha inuu hadaf oo noloshaada isbedel weyn inuu keenayo xitaa wax yar oo laakiin isbedel oo horumar ah oo yar hadduu keenayo way fiican tahay laakiin waxaa muhiim ah inaad mar kaste aad ku mintidid inaad istimraariya samaysid inaad marna aad ilaawin marna aad ka niyad jabin iska dhaaftid maalinta ugu horeysa hadaa samaysid maalinta labaad aad samaysid maalinta saddexaad iska dhaafaysid taas lama rabo waxaa la rabaa xitaa maalinta saddexaad hadaa iska dhaaftid oo tan afraad in hadaa iska dhaaftid maalintii shanaad inaa usoo noqotid maalintii lixaad inaa usoo noqotid kasoo qaad routine baa rabtaa inaa ilmahaada bartid waxaa laga yaabaa wiigi hore inaa si fiican ugu socotay and then wiigii labaad xoogaa yar isbedel baa ku dhacay qoyskaadii waxyaalaha isbedelay ilmihii baa jirada maybe wax isbedel baa imaaday oo aad ilaawday hadafkaadii u ahaa inaad routine rabtid inaad ku socotid waxaa muhiim ah inaad markaste isu soo xasuusisid hadafkaygii cayimnaa waa inaan usoo noqdo waa inaan ku mintido inaa istimraariya inaa u lahaado waa muhiim waay taas As a compassion coach and parenting practitioner موضوعياشا أتشعشيين إنا كسي حق تربية عرورتا iyo kobcinta qoyska oo saamaysa qoysaskeena Soomaaliyeed ila soo socodsiiya khayr iyo caafimaad badan baan iga tagay wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh